halkani maaha warshad lagu sameeyo gaadiidka balse waxa ay tahay qaybaha farsamada lagu kala bedelo gaadiidka ka yimaada dalka dibadiisa iyadoo la geeyo dalalka la ah deriska jamhuuriyadda Soomaaliland. haddaba waxa warbixin faahfaahsan naga siiyay Faysal Cabdi Ismaaciil Faysal Dable ayaa ka waramay horumarka balaaran ee uu ka gaaray isku bedelka gaadiidka laga keenay dalka dibadiisa isagoo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsaday sidii loo gacan qaban lahaa lagula keeni lahaa warshado amba mashiino waaweyn oo uu intan mid kamida ku sii horumariyo isla markaana u ixtiraaco gaadiid isla waqtigaana dalka Soomaaliland lagu sameyn doono. horta marka hore waxa weeyaan waa aniga oo ah milkiilaha shirkaddan FDG Faysal Dable Garage. waxa weeyaan walaalayaal anigu horta marka hore waxaan ka soo baxay 1982 ayaan anigu barats u galay wasaaradda berbera wasaaradda gaadiidka berbera. markii dambana 1985 ayaa lagu soo wareejiyay wasaaradda gaadiidka Hargeysa. marka wasaaradda gaadiidka Hargeysana saasaan markaa u soo wareegay 1985 marka waxaan qaybta dabka bilaabay 1986 ayaan bilaabay haddana makanaasaa qaybta dabka. marka hore mechanical baan marka hore ahaa markii dambana dabkii baan bilaabay ilaa ay makanaasaa nagu soo dhacday dagaalkii 1988 sida awgeedana qaxootiyada u baxnay 91kii baan ku soo noqonnay halkaasna haddana dib u bilow aan ka bilaabay shaqooyinkaygii inaan makanaasaa aan meheradaha u shaqo tago si aan makanaasaa shaqo abuur sameeyo. markii dambana haddana waxaan ugu abuurnay dagaalkii sokeeye haddana waxaan uga ambabaxay Ethiopia 9 sanadood aan haddana Ethiopia ka soo shaqeynayay Baradhaba Harar ilaa Jigjiga ilaa Wajaale ilaa Xarshin Laanqeyr ilaa dhammaan aaga Ethiopia oo dhan baan ka soo shaqeeyay. 9 sano igu qaadatay inaan magaraysaa shaqadaasi aan mechanical electrician wax walba aan ku shaqeeyo. sida awgeed haddana waxaan ku soo noqonnay markii harta shaqo naga baabaaday ayaan Hargeysa ku soo laabtay 2003 markaa saasaan haddana dib uga abaabulay haddana inaan shaqadayda dabka u bilaabo. markaa dabeetana waxaan ka furtay meherad anigoo dib dabeetana alaabta ka soo qaadi jiray. markii dambana waxaan bilaabay inaan geerashkii kordhiyo maadaama mechanicalkii aan garanayo. saasaan dabeetana haddana markii dambe u bilaabay inaan steering bedelkii bilaabo oo buuxiyo kaashadaasi bannaan maadaama nimankii Etoobiyaanka aan 9 sano la soo xidhiidhayay ay noqotay markaa inay maganaysaa aad iga codsadeen inaan hawsha u bilaabo. hawshiina aan u bilaabay insha Allah si fiican markaa ay igu socoto. kuwan dhashkawaradoodii waxooda waan u keenay nimanka ka baskaas adarka saalid kaasoo kale iyagana waan u keenay qaarnada waan googoynaa oo sidaan u googoynaa. marka adigu bedelka gawaadhideedu waa farabadan yihiin oo waxa weeye macna waa nooc kasta waan bedelnaa sida awgeed. marka insha Allah halkan markaa ku arkaysaan gawaadhidan dudusnay waxa kamid ah sida maganaysaa baska marka inta noo taala iskarooyinku waxa weeyaan iyagu waa 5 weeyaan haddii ahayd maayo iyo baska iyo fitistaasoo imikaanu bilownay iyo waxa kaloo noo jira haddii lahayd maayo imika inta noo taala. kolley dee danta dadweynuhu baanu ka shaqeynaa iyo horumarkooda iyo maganaysaa in caasimaddu ay ka mid noqoto in maganaysaa laga heli karo howlaha noocan oo kale ah. inta badan dee dadka Etoobiyaanka baan u bedelaa steernida oo maganaysaa ay u baahan in loo bedelo wixii necessary-giina ka helaan baahiyooyinkii halkanna dee maganaysaa aanu buuxin karno ayaanu talagaraynaa insha Allah. markaa dadaalkaasaan insha Allah ku jirnaa oo kooban insha Allah dee wixii kale xag dawladeed anagu dee waxba nagama caawiyo xag hay'adeedna shaqo kuma yihiinba. marka xag isdhisoo noloshayda iyo hawshayda oo keliya inba weli anigu abaabul ahaan aan intaa ku wadaa insha Allah. waxaan ka rajeynayaa inaan mustaqbalka isku filnaasho buura aan gaarnay inkastoo aan isku filnahay oo wax baahiyo insha Allah qalab ahaan mooyaane aanan xagga kale u baahnayn. Axmed Maxamed Cawaale, warbaahinta qaranka Soomaaliland.